السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إلهي سبحانه وتعالى kitaabkiisa wuxuu ku yihi يkhلق الله ma yشhاء ويkhtaar. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu doono ayuu abuuraa, kuwa uu doono ee khalqigiisa ka midana rabbi subxaana wa tacaala wuu doortaa. makhluuqaadka ilaahay subxaana wa tacaala sida gaarka uu doorta waxaa ka mida waqtiyada qaarkood. maalinkan maanta ah ee ilaahay subxaana wa tacaala ina soo gaadhsiiyey waxaa ku kulmay laba waqti oo ka mida waqtiyada ilaahay uu doortay. fahuwa yowmu jumuca aladi huwa khayru yowmin طalacat calayhi shams. waa maalin jumca ah oo sida rasuulkeenu calayhi الsalaatu wasalaam inoo sheegay kama fi lbukhaariy wa muslim, maalin ay cadceedu usoo baxda maalinta u khayr badana. fiiha khalaqa allahu aadama وأdخله الجنة وأخرجه منها وفيhi تkun الsاacة أو تquم الsاacة. وmaalintuu ilaahay abuuray نabiy llaahi aadam, وmaalintuu jannada geliyey, waa maalintuu ka soo saaray, waa maalinta qiyaamuhu dhacayo. وأfضل أyاami الأسبوع, maalmaha toddobaadka waa maalinta u fadliga badan. cibaadaadka gaarkaana la sharciyeeyey, lagana dhigay maalin ay ku jirto saacad qofka ilaahay barya ilaahay subxaana wa tacaala baryada uu ka aqbalayo. isla markaa maalinkan maanta ahi waa yowmu carafa, waa maalinkii carafa, maalinkii sagaalaad ee bisha dilxija. waa maalin ilaahay subxaana wa tacaala arrimo badan uu ku gaar yeelay. waa maalin laga dhigay rukunka u weyn arkaanta xajka, ilaa uhi nabigu calayhi الsalaatu wasalaam alxaju carafa. waa maalin ka mida bilaha xajka, ilahay uhi alxaju ashhuru macluumaat. waa maalin ka mida ashhuru xurumka, bilaha xurmada gaarka ilaahay u yeelay. waa maalin ka mida 10 maalmood ee u horeeya bisha dilxija, ee camalka saalixa ee qofka muslimka ahi uu sameeyaa uu ka fadli badan yahay acmaasha saalixa ee waqtiyada kale la sameeyo. waa maalinku ilaahay subxaanahu wa tacaala dhamaystiray diin alislaam, nicmadiisana ku taam yeelay muslimiinta dushooda. alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum lislaama diina. nin yahuudiya baa u yimi cumar ibn khadaab radia allahu canhu, wuxuu ku uhi aayad kitaabkiina ku taalla haddii annaga naloo soo dejin lahaa haddaanu yuhuud nahay maalinkaa ciid baanu ka dhigan lahay. waa aayadee buu uhi aayadda aynu akrinay buu u sheegay in rabbi uu leeyahay maanta ayaan diinta idin dhamaystiray, nicmadaydiina dushiina aan ku taam yeelay. wuxuu yihi maalinkay soo degtay iyo makaankay kusoo degtayba waan garanaya. unzilat calى الnabiyi calayhi الsalaatu wasalaam yowma aljumuca huwa waaqif bicarafa. nebi maxamed baa lagu soo dejiyey maalin jumca ah isagoo carafo taagan fii xajat اlwadaac. yowmu carafa waa yowmu ciid liahli اlmowqif, dadka taagan maanta carafa ee xujaajta ah ciid buu u yahay, suu rasuulku sheegay calayhi afضal الsalaati watasliim. waa maalin soomka la soomaa uu aada u fadli badan yahay. وفي صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وصوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة القابلة. صومك عرفة إلهي سبحانه وتعالى wuxuu ku dhaafaa sanadkii tegay dembigiisa, ka soo socdana dembigiisa ilaahay waa ku dhaafaa. culimada qaarkood waxay yidhaahdeen macnaheedu waxa weeye dembiyadu ilaahay kaga ilaaliyaa qofka sooma carafa. qaarkoodna waxay yidhaahdeen waana sida xadiidka daahirkiisa waafaqsane, dembiyada uu samayn doono
عرفة دبدت أي إلهي سبحانه وتعالى صوم كعرفة كهرية وكقدافة وفضل الله واسع. يوم عرفة ومال دعاء ورسولك عليه الصلاة والسلام يقول كما في الترمذي خير الدعاء دعاء يوم عرفة. دعاء يا بريه إلهي لا بريه وحاو خير بدن تلقوا الدعاء استمالين كعرفة. وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أنا جاي النبي يدي يقول ري وحانو نراهنون إلهي كحسنه ربنا نكبرينه وحاوصر ري أسته لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكلمة التوحيد وكليين إلهي كليينيس أمان إلهي أتكو أمان يسوى وحدانيتيس هي كلمتيس في ذاته وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه. وإلهي سبحانه وتعالى أتكن زاهي صوت كوفي سئني عيد شراك الله نقطعي وحلو ذاكته وبريو يا ستو سيلاهي وحبو ويديسا لكن الثناء على الله سبحانه وتعالى سبب لإعطاء الله سبحانه وتعالى من كرمه. أمانة إلهي أمانة وحي صاب النقطة إلهي سبحانه وتعالى ديق ديسا إن وحكاسيه. ورسولك عليه الصلاة والسلام هذا الكوري نبي الله يونس سقو كتشيرا نبيرك على وشيس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وحر الدعاء ذي النون ما دعا بها داع إلا استجاب الله له. وحبر يا مسؤال توسينكم أجرت هذا رسولك عليه الصلاة والسلام دعاء يكشاه وحلق قد بنقفك مسلم كا إلهي مال كان قيمها بدن سوق قارسيي إنه إلهي سبحانه وتعالى وقام هذا نقه علماء مركي كهاد ليان أضحية أسبابها لو تشدي لو شرعية وحي كدران شكر الله على الحياة ما هذا نق إلهي هذا نولش وقام هذا نقيسه وضحيدي هور عيد الأضحى آيات شوكتي يوم عرفات سنة كهور النوليد وتفرسدوا هاي ستين دنبي إيا خلد واحد قشينا دي لها وقتوبت كنتو وتفرسدوا هاي ستين اتسميسا أعمال صالحة وصايا آخر أكون غطا إلهي وحكوك نعمية هدنا السنة كي كدن بينين النولاته إلا عرفدي يعيدي كدن بيسين أدقادي وهذه نعمة عظيمة سرسولك عليه الصلاة والسلام وشاقي وفرصة غالية اغتنم 5 قبل 5 حياتك قبل موتك شنك غنيمة شنك كدمي انتاني كسو قارن وحكوك أنه لشاد انتاني تقيريون قيريدو وحي كاتشر يسا فرصة بدن مرة دادي متمتو بدكيني كرت وعمل صالح ما السمين كرت وحقوق مقودي كرتيد ومعرين كرتيد وصايا آخرو ما شقيسن كرتيد إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3 واحد هرو سميسي مويانه واحد بوات سمين كرتوات بلا بكرتها متشرة إلهي نعمة داس نعمة الحياة والعمر إلهي سبحانه وتعالى وقام هذنق وحي إلهي عمل صالح وناكسن سنة كوكو وفتشينا إلهي وقام هذنق نفترض حسابي وخلد يقف يدن بي واحد كجرتنا إلهي سبحانه وتعالى وقد توبت كان فرصة قالقة أدقوا كفايدي سنة مال كان ما انتهى يوم عرفة ومال إلهي سبحانه وتعالى الضومها أترك بدن ونارتك حرية. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عبدا من النار أكثر من يوم عرفة متشيرو مال حرينت إلهي الضوم ونارتك حرية وكبدا يهي مالك عرفة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتقني ويعتقكم ويعتق والدينا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من النار في هذا اليوم الكريم. أسبابتي إلهي نارتنا حرين لها أين ولا لي الكد دالو إلهي سبحانه وتعالى أين توبت كأنه أين فربضنه مال كاني ومال عرف وانا مال جمعة كصلي النبي عليه الصلاة والسلام وأعماشه وين كم ذا إلهي وتشعلي هاي
ducadana aynu farabadinno salaada casar dabadeed salaada duhur wixii ka dambeeya ilaa qoraxdu ay ka dhacayso akthar min dikri illaahi wa ducaa'i ilaahay subxaana wa tacaala xuskiisa iyo baryadiisa farabadi haddaad masaajidka iska fadhido dadkii hore wanaagsanaa maalinka jumcaha casar bay masaajidka geli jireen ilaa maqribna waa ku jiri jireen maantana waa yawmu carafa waaba kasii mudan tahayba in waktigaasi loo khasiso xuska ilaahay iyo baryada ilaahay subxana wa tacaala la baryayo khayr الdunya wاlaakhira ilahay lagu baryayo وmin acdam اladciyati ya cabd allah ducada uu rasuulkeenu ku ducaysan jiray allahuma aslix lii aakhirati alati hiya cismaة amri وaslix liya dunyaaya alati fiiha macaashi allahuma aslix liya diini aladi huwa cismaة amri وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر والدعاء ذو قيمة بضان الله لو واحد كدو عايسن لها يد بيكوبت اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري إلهي ودين تيدي هجاجي تاسو أرنكيجا هجاجيجا إيه وناجيجا أودمي وكحرية هاي الدنيا يا آخرة هدي إلهي الدين تكو هجاجي يمحى كامقا وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي إلى آخرين إيه هجاجي تاسو أن النقون إيه وإن كستود الدنيا دن شوكتو جريبا كاكحين آخر أيام ذو السعداء لدون ترى صفر الدون توالك الوجود السعداء وأصلح لي الدنيا التي فيها معاشي إلهي والدنيا ذي هجاج أن كنا ولا هاي وحسوق لي هجاج الدنيا وكسته هي النعمة الدنيا وكسته وربنا آتنا في الدنيا حسنة وكلوي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير إلى أن نلش عن نولا واحد كدكتا mid khayr oo dhan ii kordhiso mid cumrigiisa iyo noloshiisa ka faa'iideysta ilaahay oo dhig iga dhig waj'al al-mawt raahatan li min kulli shar ilaahu geeridana waxaad iga dhigtaa mid raaxo iga noqota shar iyo fitno iyo fasaad oo dhan wa du'a azima oo jaami'a khayrka adduunyo ki aakhiraba ku rursayah وكذلك الدعاء القرآن كالغو شيغاي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إله وناقا الدنيا إسي وناقا آخرنا إسي عذاب كالنار تنيقى بدبادي والدعاء رياض ذا يكوبيهين وح الله لو واحد إلهي ويديسن لها إذنه وهو سمنيه وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الجوامع من الدعاء سيدنا عائشة رضي الله عنها دعويك كوبا معنود وبلارية أي رسولك عليه الصلاة والسلام تعالى وكان يكره وينهى عن التكلف في الدعاء والتشقيق والتفصيل فيها وحكري جري رسولك عليه الصلاة والسلام دعاء إن ليس كلفة حديدة ولا سيك لدن بله وآد لو فاهيو وحسد دوبا إلى هدو يدي سنكرتو وإريا كوبا كوسو اسقلي كرا أدمي مذو شاكتو إلهي بين سبحانه وتعالى كبرينا أن يوفقنا لكل خير وأن يكفر عنا كل سيئة وأن يعتقنا من النار في هذا اليوم الكريم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المسلمون عباد الله maalmahan qiimaha badan ee tobanka bilxaj cibaadaadka sida gaarka dadka muslimiinta loogu sharciyeeyay waxaa ka mid ah cibaadatu dhabh al-udhiya in qofka muslimka ahi ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ugu dhawaado inuu gowraco xoolaha nicmoolayda la yiraahdo geel iyo lo'd iyo ariga ta'diiman lillahi wa taqarruban ilayhi isagoo ilaahay ku weyneynaya gowracaas rabbina subhanahu wa ta'ala ku caabudayo ugu dhawaanaya oo ajariyo dambi dhaaf rabbi subhanahu wa ta'ala kaga raba
gowraca noocaasina wuxuu ka mid yahay cibaadaadka waaweyn waxyaabaha taa tusiyena waxaa ka mida inuu ilaahay meelo badan oo kitaabkiisa ka mida salaada ku ladhay fasalli lirabbika wanxar qul ina salaatii wanusuki wamaxyaaya wamamaati lilahi rabbi alcaalamiin laa shariika lahu wabidalika umirtu wa ana awal lmuslimiin iyo meelo kale oo ka mida aayaadka iyo axaadiida ilaahay subxaana wa tacaala dhiigga la daadinayo iyo hilibka laga goosanayo neefka la qalay midna ilahay waxu tari maayo hadduu neefku nool yahay iyo haddaad gowracdaba ilaahay baa leh qul illahuma malika almulk laakiin waxa qiimaha u yeelay waa qasdiga iyo ujeeddada loo gowracayo oo in ilaahay lagu weyneeyo rabbina loogu dhawaado lan yanaala allaha luxuumuha walaa dimaa'uha walakin yanaaluhu taqwa minkum dhiiggeedu iyo hilibkeedu ilaahay gaari maayo oo wax ilaahay subxaana wa tacaala wax baahi oo ilaahay u qabo iyo wax dan oo u ka leeyahay ma jirto waxa ilaahay gaadhayaa waa attaqwa oo alikhlaas u horeeya inaad ilaahay daraaddii u gowracdaan sunnihii nabigana calayhi salaatu wasalaam aada waafajisaan ahlucilmigu waxay u badan yihiin udxiyadu inay tahay sunne oo aanay faral ahayn waana sida laga soo wariyay alkhulafaa araashiduun abubakar iyo cumar iyo se xudayfa ibnu usayd uu yidhi iyagoo awooday udxiyada iska dayn jireen si ay dadka ugu muujiyaan inay sunno too faral aanay ahayn oon loogu qaadan inay faral tahay wa qaala cabdullahi bnu mascuud radia allahu canh adacu ludxiyata aw atruku ludxiyata wa ana muusirun khashyata an yaraanii jaari fayara anaha maktuuba aw fariida udxiyada aan u awoodaan iska daaya mararka qaarkood si aanay udhicin jaarkaygu inuu arko aanoo mar walba qalaya oo dabeetana aanu ugu qaadan inay tahay udxiya inay tahay faral camalka markaa sunahana mararka qaarkood waa laga tegi karaa haddii laga baqo in dadka qaarkood ay u qaataan inuu faral yahay laakiin waa sunno qiimo badan oo mu-akada culimada qaarkoodna waxay ku tegeen inay faral tahay waxa udxiyo galaa waa xoolaha aynu dhaqanay nicmooleyda geela lo-da iyo adhiga neefka adhigii wuxuu ka gudayaa hal qof iyo qoyskiisa uu biiliyo ee uu nafaqeeyo neefka geela iyo neefka loodiina 7 qof bay ka gudayaan ama kelidood ha noqdaan ama mid walba qoys ha watee qofka doonaya inuu udxiyeysto waxaa la gudboon bisha dilxija markay bilato inaanu timihiisa iyo cidiyihiisa iyo jirhkiisa wax kamida jarin ففي صحيح مسلم من حديث أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل شهر ذي الحجة وفي رواية إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره وأظفاره شيئا بشهر ذي الحجة مركب بلا تدركتان إمدكنا وياه إمدوني إن وضحيسته تميه سيعديه سيروح بكتشرين ويوحدين كشبها قفك إحرامنا هذه قليل العلم يقول وحي وبدين أرنتاسي إني مكروه انتهاي وأنا حاران هاي هذا دعدنا وضحيي سيجيسي وحبيلي ميسو نفك وضحية دا إلا قليا مركز تو قال النقض أو نقض مد شلس أو نقض مد قروح بدن فضل جيسي أجر كيسوسي بدنية نبي محمد وينو قرنا نلشي سوسي هذا نصور شيء أنس بن مالك ضحى النبي عليه الصلاة والسلام بكبشين أملحين أقرنين موجوعين وسمى وكبر رسولكم عقود حيستي لبول وويلين تيكي قبان جيسي يا شيء وانان تمنى وقورانا هين وانك التماني وكيلب في عينك قورانا هيلب كيسلوا كسي فديري هاي هيلب قورانا وموقالها أنه قروح بضن وعداني يمدو مذب كودو يسوق جيره بسنكو قبطو الله أكبر بود رسولك عليه الصلاة والسلام قاعد يسوق جورعي واسيد أفضل كقفكو عيد كلو وكيلا كرا بإجماع العلماء
laakiin sida afdalkee fiican waa in isagu gacantiisa ku gowraco. neefku hadduu yahay neef ida ah, mar hadduu ilka dhacsado udxiyada u gelaya, walow 6 bilood ba ha jiree. sanad bay yidhahdaan fuqahadu, laakiin se madhabku yahay sanad hortiiba hadduu ilka dhacsado. sanadku ma aha shardi iyo muhim, waa ilka dhacsiga. hadduu neefku yahay neef riyaa, waa inuu 2 jir yahay. sidaas oo kale hadduu lo-yi, hadduu geel yahay waa inuu neef 5 sanadood u dhamaadeen uu yahay. rasuulku wuxuu yihi sida jaabir uu ka wariyey, walxadiidu fi saxiix muslim, laa tadbaxu ilaa musina ilaa an yacsura calaykum fatadbaxuu jadacatan min addan. neef musinaa mooyaan oo neef ilkii usoo baxeen, neef kale ha ku udxiyeysanina. in idinku adkaado mooyaane markaa neef ida ah oo ilka dhacsaday, macanaa weli ilkii aanay usoo bixin, waad ku udxiyeysan kartaan. waktiga udxiyeysigu wuxuu bilaabmayaa salaada ciidda dabadeed. dadka ahlulxadarka ee magaalooyinka ciidda lagu oogayo degan, qofka ciidda horteed gowracana neefkaasi udxiyo noqon maayo. sida bara ibnu caazib rasuulka ka wariyey fi lbukhaari wa muslim, rasuulku wuxu uhi awalu ma nabda'u bihi fi yowmina hada an nusallia uma narjica fananxar. maalinkan maanta waa yowmu ciid iladxa, waxa u horeeyaanu ku bilaabayna waa inu salaada horta tukano, kadibna guryaha aanu ku noqonayna udxiyadii baanu qalayna. faman facala dalika faqad asaaba sunatana, qofka sidaa yeelaa wadadaydii buu maray buu rasuulku uu igu dayday. waman dabaxa qabla salaati fainamaa huwa laxmun qadamahu liahlih, qofka salaada ciidda horteed gowraca neef uu iska shidhaysto reerkiisa u qale weeye. walaysa min annusuki fi shay, gowricii cibaadada ahaa waxba kama aha, gowric cibaada u noqon maayo. gowraca waktigiisu waa dheer iyo waa laynoo ballaadhiyey, oo yowmu ciid iladxaa buu bilaabmayaa salaada dabadeed. laakiin 3 maalmood ee ka dambeeyaba waad gowrici kartaa. ayaamu tashriiq la maalinka 11aad iyo maalinka 12aad iyo maalinka 13aad, maalinka u horeeyaana u fadli badan. laakiin haddii maalinka ciiddu uu ku dhaafaha moodi waktigii udxiyeysigu inuu ku dhaafay, weli wakti baad haysataa. hilibka waxaad xaq u leedoo lagu baneeyey inaad cunto ood kaydsato, oo waxna sadaqadaad u bixiso. kuluu wadakhiruu watasadaquu buuri nebigu calayh isalaatu wasalaam. haddii ay dhacdo sidii waktigii nebiga dhacday inay baahi badani jirto, markaasoo kale ayuunbaa kaydsiga la yska daynaya, oo qofku wuxuu isagu cuno iyo wuxuu sadaqadaysto laga dhigaya. wax hilibka kamida mushqaayad ahaan looma bixin karo, lannahu fii xukmi lbeyc buu noqonaya in la iibiyey oo kale. in la iibiyo wax hilibka udxiyada kamida oo qofkii udxiyeystay uu iibiyena looma ogola. hadiga iyo udxiyadu waa isku mid, waa isku axkaam, waana la yskaga qiyaas qaadanaya. cali bin abi aalibna wuxuu yihi kama fi lbukhaari, waamaranii an laa ucطiya aljazaara shaya minha. rasuulku wuxuu amray qofka hiliblaha ee qalaya inaanan siinin wax kamida hilibkeeda. wa qaala naxnu nucطiihi min cindina, rasuulku wuxu yihi annaga ayaa siinayna mushqaayadiisa. hilib sadaqada waad siin kartaa sida dada kale baad u siinayso, laakiin mushqaayadaad kula heshiiso hilibkii udxiyadu yaanu noqonin. ayuha almuslimuuna cibaad allah, yowmu ciid iladxa ilaahayna gaadhsiiyo, iimaan iyo ammaan ilaahay nagu gaadhsiiyo. waa maalin weyn oo kamida 10kii maalmood ee fadliga badnaa. waa maalin kamida maalmihii xajka, bal waa yowm alxaji ilakbar, waa maalinta acmaasha xajka u badan la sameeyo. waa maalin kamida bilihii xurmada lahaa. waa maalin dembiga la sameeyaa uu ka wen yahay dembiyada maalmaha kale la sameeyo. fattaquu llaha ayuha almuslimuun, ilaahay caasiina yowma alciid. cuna oo cabba, oo soomku waa xaaraan, oo gashada dharka fiicana ilaahay idin siiyey, oo farxa, oo reerihiin iyo caruurtiina iyo qaraabadiina iyo asxaabtiina la farxa. laakiin cibaadaadkii ilaahay nagu faral yeelay maalinka aynan dayicin.
وأي كم تهي الصلاة في الجماعة بالنسبة للرجال صلاة إن جمع لقلت كذا مركا الرجال لقى الله وحي إلهي نجح حاران تبين سمين رج بدن قاد كعون تشرين با مالنتا قيمها بدن شكر جيدا كديجا إني قيلان وضد بدن با مالنتا دروجة دا بلابة دوتنا هلكا كسي وضع وروي الدروجة دا قاد كلا الإسكيل على يعيد كوي هرو عون تشرينا إلهي درادها وقتها ميدان هرو عون تشرينا نعمة إلهي وسيو الدروجة دا إنه كبد قبو إلهي أوجمع هذا النقو والدروجة دا سيها إسكيل عليه مرهدو بلابو ولا تجيسه سيدا لو قالوا يفضلها لكن دروجة لكن صار لو قبحه أي عادي هذا هذاك دمرك إلهي كبقان وقريو دمر يكبحيان سلاد عيدا وبحيان أما بوقشي وحلا مدا حجاب كبحان وترك قاونان تسكاليا بل دمرك صحابة وفي الصو مركو رسولك عليه الصلاة والسلام أمري إن دمر كودا من سلاد عيدا وبحان حتى كوا أنتو كنهين وحي رسولك ولادين إحدانا ليس لها جلباب متكيها داني لهين جلباب حجابها يحيرتوها كبحضة ما حيي ليس رسولك إلهي قال لتلبسها أختها من جلبابها ولا شيء جلباب كذا وحكم ذا وحده بمعنى ها أماني سيسو ساو كبحضة بمعنى بلا جلباب إنه كبحضة ما بنار وتبرج كالجاهلية ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى رجنا إن الدمر كودا رالي وقنقضان معها ويران وشاك واجب كاغوينات وشاكتو واد قارسيسو ومنكر كقاونانتي التبرج كاد كريبتو دليرتا بنانada isula baxaysay habliya inama bale dabeetana xumaanaha ay ka dhacayaan iyaguna ilaahay ka baqaan oo maalinkaas waa maalin weyn ilaahay aan caasiin heesaha iyo muusiga la tumanaya la garaacanaya waa codkii iyo dhawaaqii shaydaanka ilaahay hadalkiisa oo quraanka ah iyo dhikriga ilaahay oo maalinta qiimo gaar leh liyadhkuru isma allah fi ayaamin macduudat maalmaha tirsan maalmaha macluumaadka ilaahay uu ilaahay xusa ayu maalinkan kamidi quraan akhris iyo dhikriga iyo xuska iyo amaanta ilaahay ku bedelan hees aad dhageysato shidato اتقوا الله أيها المسلمون واطيعوا ربكم احذروا عن معاصيه فإنها سبب للهلاك والمعيشة الضنكة في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد